sanadihii ugu dambeeyay waxa si weyn isu soo tarayay doodaha sheegaya in af Soomaaligu uu ka mid yahay luqadaha ugu fac weyn ee caalamka waxa la isku raacsan yahay in aadamuhuba sidiisa uu ka soo unkamay amaba uu ka soo bilaabmay gobolkan Geeska Afrika iyadoo khaasatan la soo qaatay dalka Itoobiya inuu ka mid yahay meelihii ay nolosha aadamu ay ka bilaabantay haddaba maxaa ka jira doodaha sheegaya in af Soomaaligu uu ka mid yahay luqadaha ugu fac weyn ee maanta caalamka aynu ku noolay lagaga hadlo dadka haddaba aqoon-yahanada ee daraasadda weyn ku sameeyay arrintaasi waxa ka mid ah Axmed Maxamed Saleebaan oo loo yaqaan Axmed Shiraac oo isagu dhowr buugna ka qoray luqadda af Soomaaliga isla markaasna iminka ka dhiga jaamacadda magaalada Hargeysa isagoo arrintaasi iga waramayana waxa uu yiri luqadaha waxa loo kala qaadaa galbeed iyo bari ama waxa la yiraahdo occidental iyo oriental marka kuweena waxa weeye xaqan India wixii ka soo rogan waxa la oranayaa waxa weeyaan occidental ama galbeed kuwa kale waxa la oranayaa waxa weeye oriental waa Shiinaha iyo xaqaas Japan iyo Mongolia marka laba gruubo waaweyn ayuu kala baxaa kuwa occidentalka galbeedku waxa la yiraahdaa Indo-European iyo kala baxaan waxa la yiraahdo Afro-Asian Indo-European waxa weeyaan afafkan laga hadlo مثلا India Kormar Caucasia ila مثلا galbeed oo Europe marka Latinka ayaa xaqan madaxka xaqan Hindiga Latinka madulgaas waxba ka dhaxeeya مثلا hadan marka tirada ku soo qaado anigu waxaan aqaanaa Faransiiska oo Latina de ama duwe oo Talyaaniga wallaba Hindidu waxaan soo tobanka waxa oranayaan مثلا Faransiiska waxa la yiraahdaa diis Hindidu waxay koonaysaa diis marka waxa la ogaaday in luqadahan markan categorization-kaas oo dhacay la israaciyay qoladaasi waxa ahayd 1934 niman Ingiriisa oo military oo meesha joogay oo India ka shaqeyn jiray ayaa arkay wax ka dhaxeeyaan Ingiriisda iyo Hindiga tiiba la daba galay markii hore muran baa ka yimid markii waxa la ogaaday inay isku group yihiin marka waxa la yiraahdaa groupkaas Indo-European luqadaha Hindigaas iyo Farisiga iyo halka mar Aryan kuwa la yiraahdo Afghanistan Caucasia oo dalkan aynu naqaano Chechnya iyo Lukas ila waxa xaqaas oo dhan isku raac ayaa la oranayaa iyo Hindi wax ka dhaxeeya waxa soo dhan baa la isku qaaday marka Indo-European baa la isku yiraahdaa Indona wad garanaysaa European wad garanaysaa marka groupkaas waa group labaad oo weyn baa jira oo la yiraahdo Afro-Asian kaas marka wuxuu kala baxaa laba group oo weyn hadana soo kanima inagu doonayna si kawan ka hadhay Indo-European-ka hadda waxaan u soo gudbaynaa wax la yiraahdo Afro-Asian marka waa laba group oo weyn oo waxa la yiraahdaa Semitic oo waxa weeye af Carabiga hogaamiyo waxa kamid ah Cibriga ka Yuhuda Arcadian Armeniga afaf noocaas oo weeyo badan marka afafka waxa la isku yiraahdaa waa Semitic groupka kale waxa la yiraahdaa Cushitic waxa hogaamiya af Soomaaliga oo wuxuu ugu horeeyaa cilmiga la yiraahdo etymology taariikhda ereyga marka waxa kamid ah afafka Nubiga maxaan ku raadayay hieroglyphs farcanadu ay waxa weeye waa Cushitic waxa kamid ah Oromo waxa kamid ah Afar waxa kamid ah Saho Rendile Konso marka iyaga waxa la isku kala qaybiyaa kuwa Cushitic waqooyi iyo Cushitic koonfureed inna marka waxaan soo galnaa Cushitic koonfureed Axmed aad iyo aad baad u mahadsantahay daraasado aad u badan baad ku samaysay arrintan su'aasha barnaamijkan aynu ku eegaynay waxa weeye af Soomaaliga oo dad fara badan oo aqoon-yahani ay ku doodayaan inuu yahay mid ka mid ah afafka ugu hodansan ama ugu qadiimisan adduunyada dad kalena ay qabaan doodo taa ka duwan adigu dhinacaad raacsantahay والله هرت وحوي إن بل مثل أساس لما ندرسها في صوماليا مركا وغريب هرت وقف عجيب وهي ده دي سمك الله يكو واحد سوى ده كيو اسمه لها يافكو وأي واحد مثلا أفكر إنك أنت تاريخ حالها مؤرخين ده أما ده كان مثلا ده لينغويستيكا comparative linguistics كي قانا هذا واحد لوجي هاي contemporary صومالي أما أف معاصرية كان ما أنت ينكو هذا إنه حمر يهرجي سيتشي لقى هذا يجبوتي شن كونوا سنة كهرب الواد لاي سوي سيسا عديم الله يا والله يا علميا بالله يا وحوي hypothesis كونا سوى حلا نن ليله برنارد هاين
oo ka tirsan jaamacadda Cologne University leeyahay imika uu ka tagay shaqada waa ritaayad garoobay laakiin tiiskiisu waa caan waxa la yiraahdaa bus language amba marka bus language kaas waxa weeye ereyga bus waa bad laakiin daadiye saadu af Soomaaliga way isbedelaa way imika mesela waxa weeye koonfur dadka qaar baa koonaya way haydaa halka waqooyiga laga oranayo way haysaa ama waxa noo soo weydiiyay iyaguna waxa oranay way weysay marka daadiye saadu way isbedelaa marka baddaas waxa weeye lake baa laga hadlayaa lakegaas waa lake imika loo yaqaano lake Omo ama harada Omo ee xagee ku yaala taala koonfurta galbeed Itoobiya marka waxa la leeyahay tiisiskaas wuxuu leeyahay 5,000 sano ka hor ayaa waxa ku kulmay halka dadkii Soomaaliya ku hadlayay iyo dad ku hadlayay Nile Sudan dad Nile Sudaniga oo dadkan imika Nile Sudanigi Southern Sudan way degan yihiin Rift Valley-gana way degan yihiin marka ninkaas wuxuu halka ka baadhay wuxuu helay ereyo badan oo markay dadka horta kulmaan isaas kala kulmaan laba xadaaradood tayl baxsan baa wixii la qaataa marka dadkii Soomaalida ka ilbaxsanaa Nile Sudaniga oo beerahana kaga horeeyay xoolahana kaga horeeyay deetana waxa la qaatay ereyo laga qaatay xadaaradaha kolba waxa laga maahdaa ta horumarsan ereyadii marka la qaatay uu meesha ka helay marka waxa weeye ereyadaas ayay deetana 100 erey bay soo qaateen 100kii erey waxa lagu eegay af Soomaaliga maanta lagu hadlayo way isku mid noqdaan marka horta afkan inuu af da weyn yahay shay kama jiro marka laakiin ummad ahaan Axmed sida adiguba qirtay taariikhda Soomaalida marka laga hadlayo ilaa 10 sanadood ku dhawaad ayaa daraadkii ugu horeeyay la hayaa marka maxaad ku xaqiijinaysaa ama loo daliishadaa in taariikh inta aad uga badan af Soomaaliga soo jiray horta ni af Soomaaliga waxa weeye xayala cajiib u leeyahay horta waxa weeye af cajiib xaq wuxuu ku horeeyaa la ilaa cilmiga la etymology-ga waxa weeye taariikhda ereyga marka imika af Soomaaligu haddaan wax ku sheego waad yaabi doontaa wax misan waxa weeyaan imika anu 7 sano ugu dambeysay etymology-ga san baaray waxa weeyaan Soomaali muxuu ku noqonayaa etymology waa taariikhda ereyga la ilaa taariikhda ereyga ha ma malaynayaa absanaano in xaraf kasto Soomaali uu macno leeyahay oo marka loogu wax dawladda marka dawladda sida erey samaysato sidii wax isku guranayo kale aad u dhisanayso ereyga oo samaysan kartid ama haddaan waxa kale oo uu taasi ku furaysa markaad baratid inaad erey kasta macnaysid laana waxaad garanaysaa wax isbeer baadhood isku gurayso marka adiga afafkuna saas u shaqeeyaan bal mesela imika waxa weeye imika Latin saas u shaqeeyaa imika DE haddaan soo qaato waxay DE ugu horeyso wax wixii ka laga jarayo kale aad haday noqotana wax lagu darayo dheeraad oo kale ba imika arhaq markay leeyihiin waxa weeye bishaan lagu tala gelin loo deska dheeraad oo kale advance venir bay ka timid webkaas waxa weeye waa imaad waxa weeye marka advance waxa weeye horo soco aad waxbaad ku daraysaa diidaas Soomaaligaas kala sameeyay oo mesela markay ugu horeyso imika haddaan mid baan doonayay maanta inaan dadka u sheego laakiin kooyaatanka xaraf waan aqaan maanta laakiin macnahooda laakiin mid quraan diisheeyay oo laba macno leh horta marka hore waanu ka badsan karaa maadu imika waa negation bay keentaa ama waxay keentaa su'aal imika haddaan ku idhaaho moog og baad garanaysaa soo maha moog haddaad saho waaba sidkii moogi waxaa baad soo garanaysaa ama mooge waxaa loo bixiyaa qofka dee aabihii dhinto waxaa la oranaya waxba mooge uurku ku jira marka wax mooge weeye marka maadaas kale waxay keentaa negation mar dambe marka inaan dad ku dawqiyo oo aad u sii galo laakiin waxaan ku sheegayaa afkani siduu u dhisan yahay waa si qurux badan oo ajaayib hadii la darso oo waxa weeye waa Axmed adigoo iga raalli haddaan ka yara dhex galo daraasado iyo warbixino jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa oo kale hay'adda UNESCO ay soo saartay waxay ku doodayaan mid taa aad uga duwan oo waxay leeyihiin af Soomaaligu wuxuu ka mid yahay afafka imika sii dabar go'aya oo haddaan la daba qabatayn halis buu daaqaya dad kalena waxay ku doodaan waxaan hubaa inaad ka warhayside in af Soomaaligu shalay dhalay yahay oo isaga iyo 500 sano jiray ilaa imikana uu baahan yahay inaad loo kobciyo doodaha sidaasa maxaad adigu kaga hortay karaysaa laba arimood horta jiro mid waxa weeye tan aynu sheegano sheekh hebel iyo wala hebel iyo waxa caynkaas yaa Soomaaligu isma dabaqaya shaqas ma laha waxaana waxa weeye cilmigan archaeology-ga iyo geology oo kale hadii marka laba lakab oo dhagaxa oo taariikhdii la garanayo
wax kala soo dhex galaan la garan waayo unconformity baa la yidhahaa marka waxaan u bixiyey isqaban waa horta waxaan imika Soomaalidu sheeganayso iyo waxa af Soomaaligu sheegayo wax isqaban karaya maaha marka haddii labada mid la raacayna afkan baa la raacaya oo isaga waxa weeye ama archaeology waxaan xaalahan dadka qiimeeya ee da'dooda sheeg waxa kamid ah waa archaeology-ga waa anthropology-ga waa linguistic waa linguistics-ka waxaan imika inuu sheegana wax khayaala oo aan wax badan jirin imika shuyuukhdan oo dhan waa isku waqti sheekh ciise sheekh samaroon sheekh isxaaq hadan soo qaato wax gidigood waxa laga yaabaa inay la dhaafin 400 sano ama 450 sano markaasina wax mid kale daaf Soomaaligu madima wuxuu la dhashay afaf oromadu la dhashay imika oromada hadan ku soo qaado maad bay isugu dhowyiin af Soomaaliga iyo oromada imika tirada ku soo qaadaya imika 20 30 40 50 bay qornayaan 50 ha iyaga wax inuu waxaan la konton xageen ku keenay waxaan ku keenay erey kale oo gaboway oo koney la yiraahdo afarta isticmaasha 2 3 4 koney bay qornayaan afartu 2 3 4 bay dhahaan ha wasku mid way afkan wasku mid marka waxa weeye xitaa sida qawaacid dhisan yahay iyo sida wax oo dhabo marka afkan madima dad buu la dhashay marka de gooni ma saari karisid oo ma oran karisid anagu carab baan nahay anagu waxaasan ku soo jeednaa iyo anaga sheekhabad waayo waxa dadka leeyahay beenahay bas dad weyna mid kale sida sheegaysa waxa la qabaa bani aadmigu inuu geeska Afrika imku taamuro badan kama taagna laakiin afka markay timaado laakiin waxa muran badan uu ka iman karaa uu ka taagay ma oran kara laakiin ka iman karaa in Soomaalidu ay kamid ahayd quruumaha bariga jiray wallahi horta afku anta waxa absal caaw ku sheegaya dad Soomaaliyeed ma jiraan waatay laakiin afka la Soomaali aan sida qabo waatay etymology ku arkay waxa weeye waxaan eriga markaan dib u macneeyay etymology ku macneeyay aniga wuxuu noqdo wuxuu ka yimid eriga la yiraahdo sam sida dadka qaar ku doodaan Soomaal maaha way sam maxay noqotay sam marka waxay noqotay waxa weeye magac way sam waa magac imaka masalan Soomaalidu waxay tahay markaan ku dhahay Axmed baa la yiraahdaa nin qof kale Axmed la yiraahdaa wuxuu ku nahay samigii ha mid kale waa calaamad magaco imaka sumad eriga la yiraahdo halkaas ka yimid sumad waxa weeye calaamad lagu dhigayo wax marka waa lagu garanayaa Soomaha samna wax lagu siinayo si adiga lagu garto marka eriga halkaas ka yimid marka Soomaal markaan lagu eego waxa weeye afkii magacyada af magacyaal weeye magacyadii markaan eegana waan arkay oo masterka Soomaaliga magac weeye asalahan waatay imaka af hadan soo noqonaya Axmed imaka af baan leeyahay ama il baan leeyahay ama waa magacyo wixii kale say ka sii baxayaan afay de wixii kale dhama ilayn ilba waxa ka bilaabmeen marka magacyada ahaa inaga waxaanad moodaa af Soomaaligu inuu record gareeyay waxaan isleeyahay muddo afafka markii hore malaha bani aadam mar qolobday kuma wada hadlin ee uu develop gareeyay cod kale hadee korba in marba inba ku soo bixiyo marka imka mesela inaga waxa jira trend yaro cajiib oo marka qofku soo korayo afka wuxuu ka bilaabmaa al ish uf laba xaraf oo noocaas ag marka saas uu develop garaa marka dambe marka waxa weeyaan de waxaan isleeyahay waa af buu record gareeyay sidii uu develop garoobay maxaa markaa ku danaa kala weey aan waxaan isleeyahay afkan waa af qadiima oo aad u gaboobay laakiin dadkiisa ma haysto ama kugu muuqata maanta inuu gurmad u baahan yahay sida jimciyada quruumaha ka dhaxaysa ay ku doodayso ما يمكن كل شيء في عربي أو سومالي كذا وتروح وياه وحن كدرسيني عاود ذاتك إن مركيان باري يرتنو وحن دوني إن تاير كدرس هذا ماشى سد حوالات بانقبته بدي واحد وياه تقواعد سومالي بانقرة وبهكذا يلا وانتوش كلام وانتوش كلام الواحد كلام انقبته وحلا إذا هو أرتوغرافيا قلنا حوي سي أفكار لوقري كانوا عندمي وكاسم كهوي هودي يجلي وحوي إن أفكار الاستاندراز كريه وسكسر لوقرة كسدحاد أنا سداي واحد حلبة تقول تيجي دولة الصومالي هذه لها عفمات كيدا هنا وإتمولوجيها أنا سداي هلا بس النض جوده هو الوضع من كرسة وحوين كبدلي واحد وحاس إفتيميا هنا عربي أف صومالي وتنقولها أفوك أفرويشن كا وحباك الدحية ما كعب سنة كل سؤال بقول يسد حس كاشن كي أيام بيبر قرأ
paperka waxaa la yidhahdaa the common origins of Somali and Arabic waxa weeye isku asalnimada af Carabiga iyo Soomaaliga Boston baa lagu casuumay shir lagu qabanayo Somali studies ha paperkayga waan ka dhiibay waa loo guuxay waa loogaa caalamku ogaa in labada af wax ka dhaxayaan laakiin cid taabata arrinka laftiisa baa loo baahnaa marka hadda waxa weeye waxyaalaha cajiibka waxa weeye Soomaali hore u dhiman maayo waayo wuxuu la walaaliyahay Carabiga oo af weyn